xildhibaan Dr. Ali Said Faqi geeko ee 1 Abriil ee magaalada Baydhabo ka qabay doorashada baarlamaanka lamada ee Koonfur Galbeed Soomaaliya way bakulunkan ku qayb galay xildhibaanada sagaalun ilaa mudana sidaasayna uu ka dhameystireen kooramka kulanka baarlamaanka way banan ka horeyntii bilaabmay wareegga koowaad ee doorashada oo la ka dooraday gudoomiyaha golaha wakiilada Koonfur Galbeed oo ka tartamay lama musharax oo shalay Dr. Ali Said Faqi iyo musharax xildhibaan Maxamed Abdiraxiin Nuur way baniyay sharaxna oo deerow sultan Dr. Ali Said Faqi oo heli سيتون إسد أدا ميل مشرح اللبان محمد عبد الرحيم وسهلي لم أدا سيد أو نحلاوين ويبنا تيجي وسكت واقعي قدومي حكومة الدرك برلمان كونفور قلبت حسن عبد النور آدنا سراش الإسد هذه سدير وأهلابين وصلي الموت الجري وهم أرابين أنت كمان حلوان محمد عبد الرحيم نور وهمي لوط حلوان دكتور علي سعيد فقي وهمي سديت إسدهوت سنة دكتور بانجر وهي سنة دكتور برلمان كلام كوفر كلام الصومالي قدوم كيس قدوم ويا برلمان كمان كونستي دكتور علي حلوان دكتور علي سعيد فقي wareegii lamada doorashada gudoomiye ku xigeenka koowaad ee golaha wakiilada Koonfur Galbeed oo ka guuleystay Maxamed Nuur Maxamed Maalin oo helay oday deerow siitun iyo afraad meel dhinaca kale oo la tartamaasay Aamine Isaaq Maxamed oo yeenay helay siyadooda way bansaasay gudoomiye ku xigeenka koowaad ee golaha wakiilada Koonfur Galbeed kana gaday Maxamed Nuur Maxamed Maalin حلوان محمد على الروح أنا في المسجد الدكتور البرلمان كوفر قلبه سومالي gudoomiye ku xigeenka lamada ee golaha wakiilada Koonfur Galbeed oo ku kuleysay Shamsi Maxamed Yarow oo injirna ila tartamaasay way banaan ka oday galanteega way banay helay oday deerow sagaalun iyo lama oda ma jarta idiidi ama ku aamustay سجاشن إسده حق وثاء وغنى جدا أدى الأوائل آلي سجاشن إلا ما نوجد سجاشن إلا مذيبة كمان الأوائل أسوة ترتنتين قدروا بحاجات الأوائل البرلمان وصل كمان كله وأقرأ وأقرأ سنة أكثر قدروا بحاجات الأوائل البرلمان وصل كمان وهاي شمس محمد يوم إن كلام مشارحينتي هلا كراستون ينترتماي ولي بشانتي إذا كفراسين وانا ديدي دورش حرية حلال واني هذا واين أنت أسكوي بس رسمي لناري قدوميها قولها وكيلة كونفور قلبد يكحجين شيء كوبا دي ولا ماذا ويبنداري قدوميها محكمة سرعة كونفور قلبد وحائل والله إذا بالله إذا الله وأن ميع إلهي وبارنا يا إن أن أجت خلقيا سداعته وأي تجت دلت دلك يديتنا توراينا دستورك يشروع ذكله أدكسن دولة goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya wabillahi tawfiiq wayba kulanka baarlamaanka si rasmi ah shir gudoomiyaha golaha wakiilada Koonfur Galbeed mudane Dr. Ali Said Faqi iyo ku xigeenka koowaad iyo lamada waybana yasi wada jiranka mahanagan eed walba oo gobolka ku jeesatay intee ku guuleysan baarlamaanka Koonfur Galbeed waana hogaamiyeen 4 sano hataa dareerta xildhibaanada dalka ee xildhibaanada Koonfur Galbeed iman sharafka ee odayaasha dhaqanka أما هو السلام أنت
waxay ii tahay fursad weyn in halkaan maaragtay iga doortay inaan noqdo guddoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed. waa ku mahadsantihiin intii codkoodii siisay. waxaan kaloo mahadcelinayaa dhammaan soomaalida dibadda iyo gudahaba oo igu taageertay oo muujisay ambali ii soo dirtay inaan xilkaan maaragtay aan u tartamo aan ku guulaysto. iyagana way mahadsan yihiin. waktiga isagoo ciriiri ah waxaan leeyahay shaqo culusaa taalo, waa cusubaa loo bilowday, howl culusaa jirto. xilligii waxaan codsanayaa dhamay marka ilaahay kumadiyaan kasokow xildhibaanadii idoo baday oo codsooysiyan eedan mahadsihiin. waxaan rabaa mahad gaara inaan u celiyo madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed laftagareen oo sameeyey fursad qaali ah siiyey gabdhaha koonfur galbeed oo aan weli soo marin, maadaama gudoomiye ku-xigeenka labaad baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka koonfur galbeed uu ka dhigay gabadh oo odayaashana uu ku goobaanayay sidii gabadh kursigaas ay ugu matalineen. kursiga gabadha ay ku fadhida shamsaa ma ahan kursi shamso, waa kursiga gabdhaha koonfur galbeed dalka iyo waa guud u soo horeeyay gabdhaha koonfur galbeed. inka dambeyntii kulanka baarlamaanka koonfur galbeed oo geekala ka doorday gudoonkii hogaamiye lahay baarlamaanka koonfur galbeed iyo waliba helay gudoomiyaha cusub ee golaha wakiilada koonfur galbeed Dr. Ali Saciid Fiqi. waxaan idin rajaynayaa guul iyo gobonnimo oo bilaahi tawfiiq u xiran yahay. Faisal Dhaay Hussein, Radio Television Koonfur Galbeed, magaalada Baydhabo.